runtii waxyaabaha hadda qalalaasaha oo hadda yartaan dhacay waxyaabo cusub bay noqdeen oo aad iyo aad aanan ka malaysanaynin xagga dawladda inay ka yimaadaan annagu haddii aan nahay ahlu sunna wal jamaaca haddii aan nahay galmudug ma rabno in hal qof oo naga dhaawacmo ama hal qof oo naga dhinto ma rabno bulshadeena uma rabno deegaamadeena uma rabno meel haddii wax nooga dhaawacmayaan ama nooga dhimanayaan annagoo walaalaha madax furashada loo haysto xoreynayna inuu ama naga dhintana ama naga dhaawacmo taas ayaa diinteennuna na faraysaa annaguna aan doonaynaa inaan isu bahaysano dawladda federaalkana aan ka rabna inaan masalan ba inagu gacan siido macallin sugaal cali guuleed oo ka mid ah culimada galmudug ayaa dalbaday baajinta wax walba oo keeni kara iska horimaad dhexmara bulshada wada degan deegaanada galmudug midda kale waxaan u jeedinayaa culimadiinka ahlu sunna wal jamaaca walaalaheen waxaan leenahay culimadeennii baa tihiin agteenna waa karaamaysan tihiin halgankii ahlu sunna wal jamaaca ee ka bilowday 2009 2010 gobolada dhexe wuxuu ahaa mid diinta iyo caqiidada iyo dadka Soomaaliyeed oo goboladan dega lagu xoreeyo awalan gaar ahaan guud ahaan rabay ummadda Soomaaliyeed lagu xoreeyo nimanka ayaga ah dhibta badan ma ahayn mid aan ku raadinayno mansab adduunyo iyo power siyaasadeed ma ahayn waxaan filayaa inay ahayd ahlu sunna waxay halgankaas u galeysay inay ku sinto system guud oo dawli ah oo cadaalad ah oo la wareega xilkaas culimadu hayaan ay guntadeen ayagu isu direen waxaan rajaynaynaa dawladdan hadda joogta inay tahay systemkii ugu wanaagsanaa sida aan guud ahaan dadka Soomaaliyeed arko systemkii ugu wanaagsanaa wax lagu rajin lahaa inuu yahay waxaana deeqa dawladnimo nama deeqo jamaahiirsi iyo gobolaysi nama deeqo midda labaad waxaan u dirayaa dawladda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha hadda hawsha ka wada caasimada galmudug Soomaaliyeed waxaan leenahay shaqooyinkii intooda ku ekaadeen bulshada isku dhaceeda iyo waxa weeye kala shakigeeda hala ilaaliyo dawladdii guud waa idinka dawladdii waddanka waa dawladda dhexe dowlad goboleedkii galmudug oo 4 bilood dib nooga dhacay oo aan sugayno intaas loo dhagataagayna sidii loo dhaqaajin lahaa falankeeda hala galo culimadu waa culimadiinii bulshadana waa bulshadiinii cid kala qoqob iyo waxa weeye igu mabdaa iyo midna ma jiraanin hawshii intaa ku dhamaato dawladda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha hawshii ha dardargeliso ha dhaqaajiso insha Allah taala ku baqana walaal macna ma garad Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa bulshada ka dalbaday xalinta khilaaf kasta oo dib u dhig ku keeni kara dhismaha dawlad goboleedka galmudug ee haatan loo darban yahay Sheekh Shaakir ma jiraan wax wada hadalla ah oo xal looga gaarayo xaaladaha ka taagan oo galmudug ahlu sunna iyo dawladda dhaxmaray arrinkaasi waa midka aan ku dadaalayna waaye waxaan rajaynaynaa inay si wanaagsan ku dhamaato rajaynaynaa hadii Allah idin xiisada hadda taagan waxaa jira warar sheegaya in deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud oo iyo gobolka Hiiraan oo horey ay ugu sugnaayeen ciidamada ahlu sunna ay haatan gacan ku haynteeda la wareegeen dawladda arrinta ma jirtaa ciidamada maamulkii jiray oo halka ka jiray oo galmudug ahaa iyo ciidamada dawladda labaduba gacantay ku hayaan haddana gacantay ku hayaan amnigiina waa ka wada shaqaynayaan haddana waa ka wada shaqaynayaan ilaahay idanka dhuusamareeb xaaladeedu waa sidee hadda dhuusamareeb xaaladeedu waa degan tahay aad iyo aad ay u fiican tahay ma jiraan xiriir si gaara idin dhexmaray adiga iyo wasiirka arrimaha gudaha oo haatan ku wada sugan Galgaduud waa jiraan in badan wada xiriirnay waan isu nimaadnaa waana ka wada sheekaysanaa masiirka galmudug waa ka wada sheekaysanaa waana wada quseeyaa wanaageena ku dhamayna ayaana rajaynaynaa biidnillaahi alkariim janalka warar cusub haddii uu kugu cusub yahay fadlan subscribe saar oo riix gambaleelka mahadsanid